guusha madaxweynaha horumarka dalka waa guusha madaxweynaha hiigsiga isbeddelka dhabta ah iyo isdhexgalka bulshadana waxay ka mid tahay waxyaabaha madaxweynaha lagu xasuusan doono waxaana leeyahay mudane madaxweynaha balyo annaga ka haween ahaan waxa aad iyo aad aniga ii soo jiitay in maxaabiistii Soomaaliyeed dalka dib maaragtay loogu soo celiyo in dalka la keeno in ay maaragtay ay maxaabiistaas hooyada Soomaaliyeed ay u baahan tahay hooyada Soomaaliyeed iyo ubadkeedii kala irdhoobay in la isu keeno waxyaabaha ugu wanaagsan oo anigu aan isleeyahay hooyada Soomaaliyeed waxay ka tahay raalli waxa kamid ah sida maanta meeshan aan taagan oo kale in iskoolkii 15 May dib loo furo 15 May loo hambaliyeeyo la yiraahdo waxa daaha laga qaaday hooyada Soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay guusha madaxweynaha qof walba oo dan kale siyaasadda inuu ka gudbo madaxweyne waxaan leeyahay hambaliyo waxyaabaha ay qabatay wax inta lagu soo koobi kara ma aha waayo madaxweynuhu waqtiga la magacaabay iyo howlaha hor yaala iyo caqabadaha taagan waxa kamid ah in mar walba isqabqabsiga siyaasadda mar walba waxay keenaysaa caqabad waxaan uga digaynaa marka aan leenahay ka raali noqdo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed haday jirto dhaliil waxa wanaagsan qoraal inaan ku gudbino inaan media la isugu soo gudbino waxaad arkaysaa dadka qaarkood inay ku cabanayaan wadooyinka la xiraa mar walba wadada la xiraa wadada cadawga laga xiraaya cadawga hadaan iska kaashano guryaheena hadaan ka ilaashano wada walba way noo furmaysaa waxaan rabaa marka dadka u arkaya dhaliil in wada walba dhagax hadii la dhigo maxaa keenay dhagaxa maxaa sababay shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa 3 milyan ee ku dhaqan caasimadda hadaan nabadda u guntano 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay Soobe ma dhagxaana taalay ma jidka xirnaa waa maya laakiin waxa la goobayo oo la baabi'inayo waa anaga jiritaankeena aniga marka wax caqabada oo nu arkay male dadka inta ugu badan marka ku su'aalaan waxay ku leeyihiin dawladda waxay ku jirtaa xayndaab dawladda adiga dawladda shacabka dawladda maxay tahay marka shacabku waa inay cashuurta bixiyaan shacabku waa inay dawladda jeclaadaan shacabku waa inay laamaha amniga la shaqeeyaan anu waxaan xasuusan